laakiin faroole iyo isaga iyo ka hadda jooga midkoodna waxaan ahayn aan kugu shirtago waa xamar markaan tago aan noqdo anaa intan oo dhan iga tirsan yihiin wixii aan xamar ka rabo marka waa inaan ka hela ama prime minister ama madaxweyne waa sallaan dadka meesha joogaan dadun loo isticmaalayo wax meesha yaalla puntlandaa la sheegaysa meesha ku murmaysa wax on the ground maamul jiro oo puntland leedahay ma arkaysid ciidamo ay leeyihiin ma ay jiraan haddana meesha waxa quray ku haystaan waa uun xildhibaanada marka la dooranayo iyagaa magacooda xildhibaanadii dadkaa loogu talagalay 3 sanatar bay ahayd inay yeeshaanoo mid iyakaaba markii horeba la tegey markii horena iyagaa magacaabaya haddadanna waxyaalaha ina farmaajo uu leeyahay waa su'aal adag wuxuu ka oggolaaday siciidani inuu haddana isagu soo magacaabo wuxuu uga jawaabi waayey la'anno concessionka ina danina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo hawskaba dadka loo magacaabayo ee maakhir inuu isagu personally inuu personally puntland laga hadlo isagii ha dhowto dee wuxuuba noqonayaa nin la yimaada inuu yidhaaho anaaba istaahinana madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awooddiisa ayaa dee muuqanaysa haddana wuxuuba ku darsaday jubbaland oo alliance-ka isaga iyo ina faroole iyo cabdiweli prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime ministernimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambena prime ministernimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo faroole iyo cabdiweli intuba waxay ay kuuriga ugu jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir na ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed jubbaland ka helayna dee wuxuu leeyahay muuqatana waaba tay ka hor yimaadeen ina farmaajo iyo cilmigan uu la waday 3 gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koow wixii wax lagu dhoobdhoobi karo 100% waa la jiraa laakiin haddana xal ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiika bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laanno marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo dee danaha iska hor imanaya oo dee waxay noqonaysaa Soomaalida inta waxay u badan yihiin danaha xoogga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba hadday noqonayaan wax inoo midho dhalaya 100% waa taageersana in meeshaasu ay degto oo adduun weynaha midaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca adiga ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo dawladda Soomaaliya maya anigu han siyaasadeed oo dambe igu hadhay daabaanahay geeska Afrikana wax badan oo fursadaha hadda ka muuqda oo siyaalo badan oo taariikhdu waxyaalaha horeynan arki jirin baa inoo muuqda Ethiopia lafteedii baa gilgilanaysa dadka hadda aagan aan joognay maamulkan Soomaaliyeed oo haddaba ayba tahay meesha qureen nabad iyo xasilooni ka muuqato waxaan cali ahaan qabaa Soomaali isu timaada door weyn buu ku leeyahay dadka dhulkan degan iyo dadka waqooyiga degan labada meelood meel ficil iyo xamaasad iyo shacabka ah oo Soomaali la isla raadiyo hadda Hargeysa iyo Jigjiga meel aan ahayn kama bilaabmayaan haddii Soomaaliland madaxweynaha la siiyo caasimadda Hargeysa laga dhigaa qolada inay midoobi karaan labada والله اللي يسلب سوقات سيدان مقليو لكن بهاش كسب بدد لقى فيهن نمان كانوا دجال بيقالين قرية قرد الربا تذكرنا وحبي كوكعيين وقت يقعدنا يسا وحي إن فهم كدتك لقول نقده والسدبة وحلوقة داعيه والله تصو دنتا
ay hadda intay haystaan inay u fiican tahay in ay mid weyn ka mid noqdaan iyaku ooba ay leadershipka la rabo hadday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo dee laakiin laba ninoo qol madow isku xidhay arrintaa ma go'aamin karaan dadkanna waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil maxaan baa laynoo laayey waa lagu beeray wax raje oo aynu ka leenahay meesha ma jiro yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan dadkaaga adaa yaqaana aadan jahayn karin oo wuxu la qimayn oo u tilmaamaynin dee halkanba oo analaf lagu dabamari karaa maahee dhibaatooyinka hadda somalilan gudaheeda ku jira umaba gelayno laakiin waxay micno ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax somalilan ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiinna iyaka oo ay soo jeedaan oo ilaahay caqli iyo xikmad haynagu wada manaystee ay xisaabtamayaan inay waxay diideen iyo waxay ogol yihiin